mudanayaal iyo marwooyin runtii aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay sharaf weyn ay tahay inaan kala soo qayb galo caawa kalfadhigii koowaad oo idin xirmay runtii baryahan dee warku waa iska socdaa waxaa leeyahay ninkii maxamed cabdullaahi ah oo aan safarka jecleen oo diyaaradaha shacabka qaadan jiray wuxuu arkay diyaaradii private-ka ahaa safarkiisi waa batay runtii safarkii waa sax safarkan macno badan uu leeyahay oo adiga shanta safar aan galay macnooyin badan ay leeyihiin macnaha ugu horeeya oo muhiimka idin sheegaa runtii sidii aad wax u samayseen caalamka waa soo jeedatay waxay muujisay Soomaaliya waxay ahayd meel runtii ceebteeda iyo foolxumadeeda adduunka oo dhan cidii rabtay inay wax u sheegto ay tiraahdo Soomaaliya daya levelkaas yeelan gaarin macnaheedu waxay tahay dadkan waa dad xun yaan lagu dayanin electionkii hadda aad samayseen runtii wuxuu noqday election historic ah oo caalamka weliba khaasatan caalamka carab ay yiraahdaan Soomaaliya aan ku dayanno maxaa yeelay si wuxuu dhacay aad u qurxoon oo peaceful ah saddex madaxweyne oo kala horeysayna gacmaha isku qabsadeen oo ay muujiyeen solidarity iyo walaaltinimo iyo inay ka shaqeynayaan danta dalka iyo dadka ay ka shaqeynayaan caalamul carab waxay dareemeen marka annaga waa dhab waa burburnay dhibaatooyin badan ugu dhacay oo runtii dee caalamku waa nala yaabay muddooyin badan laakiin taas waxay noqotay wax taariikh ah oo la yiraahdo Soomaali dad jira waay waxa looga daydo iyo shacabkii na taageeray intaas markay caalamka arkeen caalamka marka na daneynaya waxa galay marka Soomaali waa istaagtay hal gacan qabto kulli safaradan galayna safar la casuumay hayeen oo diyaaradooda la soo diray oo waliba hadda ku yaalaan oo aan dib u dhigayo xaqiiqada markaan idin sheego wax kale ma aha waxa weeye taageeradiina iyo taageerada shacabka Soomaaliyeed waay ma aha maxamed cabdullaahi maxamed haddii marka aan ka faa'iideysano fursadaas oo aan muujino in aan wixiina soo maray 27 sano aan wax ka baranay oo aan nahay dal dimuqraadiyad ah oo runtii u adeegaya shacabkooda danaha shacabkooda ka shaqeynaya waxaan aaminsanahay caalamka cid walba waxbay nagu darsanaysaa waxaan muujinay dad waalaha inaan nahay dad israba inaan nahay dad inaan noqonnay bislaaday oo maturity gaaray dhanka siyaasadda marka haddii aan ku sii darno waxaan aaminsanahay oo xaqiiqo ah inaan Afrika iyo wadamo badan aan ka hormareen wararkan socda baryahan wax yar yaan rabaa inaan ka iraahdo waa mahadsantihiin macnaha waa in maqalnay waxa tiraahdeen ciidankeen 18 ma aha mana ahaan karo 18 laakiin waxa weeye meesha la leeyahay ugu yaraan way tabarteena ku xiranta 100 200 intii anaga tabarteena ciidanka hadda joogana hal qof oo la ruqseenay ma aha xitaa kuwii horaan qaar ka soo celin kuwii tagay oo qaarkood la ruqseeyay oo xuquuqdooda loo diiday yaan dib ugu soo celin maxaa yeelay dalka dagaal buu ku jiraa qof walba u baahannahay curyaan ha ahaado indhoolaha ha ahaado qof alla qofkii dagaalkan ka soo qayb gali kara oo qoladan horarka ah ka hor imaan kara waa loo baahan yahay saas darteed ciidankeena tiro xadadan ma laha meel ku qora midda labaad waxay tahay
anugu waxaan ahay taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ciidanka militariga xoog dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed ciidanka xooga marka waa Somali National Army waxay hoos yimaadaan taliyaha guud iyo hoos yimaadaan oo aniga ah iyo hoos yimaadaan anigana waa iga go'an tahay ciidankaas inuu noqdo ciidanka siduu ahaan jiray oo kala ah ciidan isku dhaf ah aan qabiil lahayn sidii waagii hore ahaan jirtay unitka ugu hooseeya oo 12 kun ah waxay ka koobnaayeen Soomaali oo idin macnaana ku jiray macnaha ku jira waxa weeye haddii 2 iyo 3 isku qabiil yihiin oo ay dhibaato sameeyaan waxa laga yaabay inay isqariyaan oo is sheegin marka waxa iga go'an ciidan isku dhafan oo Soomaaliyeed oo ka amar qaata federaalka inaan dhisno yaa iga go'an idinkana gacan idin kaga baana ciidankaas wuxuu amar ka qaadanayaa taliyahooda maxaan ku raahdaa wuxuu ka qaadanayaa banduulahooda wuxuu ka qaadanayaa wasiirka gaashaandhigga meel kasta ha jooga ciidanka waxa weeye ciidanku wuxuu u shaqeeyaa qofka mushaharadiisa bixiya qofka logistics bixiya qofka rasaastiisa bixiya qofka magacaaba yuu u shaqeeyaa ciidanka macnaheedu waxay tahay annaga iskale roolkaas waa roolka ama maxaan ku raahdaa roolka aan leenahay way haddaan nahay federal government haddaan nahay annaga iskale roolkaas waxaa naga dhexeeya guud ahaan difaaca qaranka ciidanka qalabka sida waxaa naga dhexeeya oo federaalka uu maamulaa uu leeyahay maxaan ku raahdaa doorka ugu horeeya uu leeyahay arrimaha dibadda iyo monetary systemka saddexdaas waa hawl federaalka monopoly u ah gaar u ah waxaan idiin sheegayaa arrinta ciidanka aan kulligeen xoogga saarno inaan dhisno ciidankeena annagaa dalkaan loo baahan yahay inaan xoreysano waxaan ku xoreyn karnaa ciidankeenna inuu noo tababaran yahay ciidankeenna in aan dhaqaalaysano oo aan siino waxay u baahan yihiin mushaaharadooda ay kow ka tahay caafimaadkooda kii dhintana caruurtiisa aan ka warqabno taas waxay keenaysaa marka ciidankaas inuu noqdo ciidan qaran inuu noqdo kaas weeye kan annagu aan ka shaqeynayno hadduu ilaah yidhaahdana afarta sano soo socota haddii aynan gaarin taas runtii 4 sano naga khasaarta wey keligeena ma samayn karo waxaan rabaa inaad gacan siisaan dowladnimadani ma aha wax qof leeyahay ma aha annagoo dhan iyo noo dhaxaysaa waxaan u haynaa shaqadan oo aan u adeeganaa shacabka Soomaaliyeed u adeeganaa